qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan barwaaqo gaarne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل كسو دواذا مقالة تحنها أها يعني هل كان كسو باهين جرني كساب سنة مادة إنجليس قارهان جريد كسديدات وليو حاكو جرنا يونت كسانات الراديو kan wuxuu ku saabsan yahay marka dabcan exercise koowaad oo ku qoran page-ka 67 title-ka exercise-ka wuxuu yahay right waxa ku qortaa a or an waxa ku qortaa qodobka a ama qodobka an where necessary meesha lagama maarmaanka ah ku qor meel waxa jirta aan lagama maarmaan u ahayn in labadan qodob lagu qoro ama midkood lagu qoro dabcan su'aasha koowaad ilaa 8aad waxa kaga soo jawaabnay muuqaalkan ka horeeyay kan waxa ka bilaabeynaa su'aasha 9aad marka waxay tahay chair is made of steel and wood chair dabcan waa kursiga is made of wuxuu ka samaysan yahay steel waa nooc ka mid ah birta and iyo wuxuu ka samaysan yahay wood alwaax uu ka samaysan yahay okay labada saddexdaas meel ee banaan ayaa ku buuxinayna marka labada qodob ee aan haysano maxay noqonaysaa marka chair ay noqonaysaa chair kursiga because chair wuxuu ka bilaabanaa c chair kursiga is made of wuxuu ka samaysan yahay steel birta nooceeda steelka and a wood iyo wuxuu ka samaysan yahay alwaax marka qodobada isticmaali karno dhamaantood waa the article a su'aasha 10aad ee ku xigta iyadana waxay tahay Mogadishu is big city Mogadishu magaalada Muqdisho is big city waa magaalo weyn big marka waxay ka bilaabanaysaa b oo consonant letter ah xaraf shibana ah waxaan ka hormarinaa marka a ayaa ka hormarinaynaa waxay noqonaysaa Mogadishu is a big city waa magaalo weyn the article a ayaa u isticmaalina marka su'aasha 10aad ee ku xigta ayadana waxay tahay ho is made of okay steel and the wood ho waxa laga wadaa yambo marka maxay noqonaysaa ho waxay ku bilaabatay h na waa consonant waxay noqonaysaa marka ho yambada is made of waxay ka samaysan tahay steel birta nooceeda steelka and a wood iyo alwaaxa ay ka samaysan tahay su'aasha 12aad ee ku xigta iyadana waxay tahay please fadlan give me a okay slice of bread jab rooti ah ama gabal ama cad rooti ah slice waxa laga wadaa piece hadii English kale lagu micneeyo marka give me a please give me fadlan a slice of bread jab rooti ah ama cad ama gabal rooti ah with butter oo subagaysan ama subag leh marka labadaas meel ee banaan labada qodob aan ku buuxin karno muxuu yahay waxaan dhahayna please fadlan give me a slice of bread jab rooti ah because slice waxay ku bilaabanaysaa s na waa consonant ama waa shibane hadduu erey ka horeeyana ama u horeeyo xaraf ku horeeyo duu yahay waxa laga hormariyaa the article a sidaas oo kale with a butter ay noqonaysaa marka oo subagaysan butter wuxuu ku bilowday b oo consonant ah haddii ereyga xarafkiis ugu horeeyo uu consonant yahay waxa laga hormariyaa the article a numberka 13aad ee ku xigo asagana wuxuu yahay it's pleasant way wacan tahay to see inaan arko rainbow
qaansaroobad. Rainbow waxaa la qaansaroobad ama jeegaan. Marka it's pleasant way wacan tahay to see inaan arko rainbow qaansaroobad ama jeegaan. meeshas bannaan marka labadan qodobkee lagu buuxin karaa waxaa ku buuxinaa the article ee qodobka ee maxaa yeelay rainbow oo jeegaan ah ama qaansaroobad ah waxay ku bilaabatay the letter R oo consonant ah. su'aasha 14aad ee ku xigto iyadan waxay tahay Somalia is bigger than. Soomaaliya waxay ka weyn tahay Djibouti. Djibouti ayay ka weyn tahay. meesha marka necessary ma aha in wax lagu buuxiyo sidaas ay sax ku tahay. marka numberka 15aad ee asagana ku xig wuxuu yahay maize galeyda is cheaper than. waxay ka raqiisan tahay okay wheat qamadiga. maize is cheaper than galeyda waxay ka raqiisan tahay wheat qamadiga. labadaas meel ee bannaan it's not necessary ma aha sidaas marka ayay ku saxan tahay. waa rajaynaa in la fahmay. halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. haddii ay tahay marka ugu horreysay aad soo boqoto channelka waxaa kaa dalbanaya inaad nagu soo biirto oo aad subscribe dhahato isla markaasna gambaleelka aad furato si marka ugu horreysa muuqaalka halkaa soo gelin ku soo gaaro. haddii hore aad nagu soo biirto inaad muuqaalka laag noo siiso shaarna garaysid waa mahadsan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.